عذر صوماليا كجرا واي خاصة قبيل كان هاد عالم كنت نو كينين أما أنا لفتيجين أن أمسنا إن جرت 4.5 وحنا هين ودن كوكما اسمه سببته هيد ما أنت هير محل الجارسي أنا جينا كل دقنا قبيل كسم حوارنا وحفيان حتى كي قبيل كمثلا وهدي وبرلمان كتجو dadkii oo matalaya xataa war iyo calo ma hayo dan iyo helana kama laha midda kale ayaa ka dhawaajisa walaashay oo maxay ahayd fiisada war wadamo qaar maxaa jiraan mataqaana xiriir ay leeyihiin ay maxay ahayd protocol ay samaystaan oo waxyaala la yiraahdo memorandum of understanding oo labada wadan u dhexeeyo ma awoodi waayeen raggan hadda maanta dowladda isku sheegaya aniga ma dhahayo dowladda soomaaliya waa kasoo horjeedaa laakiin waxyaala maxaa jira oo runta loo baahan in la taabto sida hadda gabadh walaashay u taabata camal inay dadkan la hadlaan ama fiisada ama waxyaalahan oo markin oo dadka isdhaafayaan businesska isdhaafayaan maanta Kenya waxa dhiso Soomaali been la isku sheegay haddii la tago magaalooyinka waaweyn nimanka ganacsatada waaweyn oo Kenya jooga waa Soomaali wadankoodana ma rabaan inay dhisaan sababtay u dhisayna maxaa mataqaana muxuu dhaha aniga maxay ahayd wali dila ama wali cuna ama waxsan kii oo maxay ahayd dowladda wax ka noqdana markin waa soo baxa maxay ahayd muxuu imaana Kenya imaana guryo gadana ama muxuu tagaa maxay ahayd Turkiya guryo ka gadana hadda saddexdii inta ugu dambeysay madaxweynayaal oo Soomaali soo mareen gebigood guryo maxay ku leeyihiin dibadda ku leeyihiin wadankooda inay maanta guryo ku leeyihiin wadankooda aniga ma dhahayo dhul kuma laha laakiin maxaa u malaysaa in maskaxdii oo yani programming lagu sameeyay la yiraahdo reed meesha waa ka tagayay waa meel qarax badane ha ku dhimanay ciyaalkaaga noloshooda iyo maxay ahayd inta ka fikirtid guri dibadda ugu gad ama meel wax ugu sameey marka إلهي قرآنك محكير لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آيات سمعا وما حسوستان لكن معناه هذا محاوائي ومدان إلهي وحبك ما بدلها حدي أيك وحب إسك بدل إسبدل كان محكي مع هذا شعبي كان هدوق جروا إنه وح إسك بدله أو محيه نولشي سي مستقبل كيس أو كفكره هبرت إذا كتاه قف وقعة أما قف وح أسمينا هبيرات مجرد مدا إيمانا هتجا مد كلا إيمانا وأسوب باهي إسويدية nin kasta oo maanta Soomaaliya soo mara madaxweynaha ahaada ama ra'iisul wasaaraha ahaada ama maxamed wasiirha ahaada asoo caata badan oo imaana markuu xukunka markuu deegaana markino korkiisa suuqa ka socdo ma malay kartid u barbar dhig wadamadan oo maxay ahayd Yurub ama America asoo dhalinyaro qurux badan oo imaana markuu ka tagana asoo cirro badan oo ka taga sababtoo ah maxaa ma taqaanaa problemka iyo maxay ahayd fakirka oo wadanka u fakira ay ka tahay laakiin Soomaaliya ninka maanta jooga xukun muxuu arkaa أنا محا أقانا تد أو تكسيليالا أنت كتاجين حلبانا نقدين ما أنت محو كلها أنا محا جر صدن مليون نواحيسا إلى أن كوجد داري العكس أنت لكن العكس الشعب لو مثل قلنا وزارة ده الصومالي ما أنت لها أو شقينا هل وزارة إقامة مجرتها من تان هين أو وزارة دار ما جوده عاوي محيه محل لها وزارة بيرا جرت هل بير أي سبعين مجرتها ماي وزارة محلو لها محيه يعني أني وزارة قبل ميزانية ودنك وعلى كلا خير سنة على كل حال إلهي صومالي ماركن إله أمقن أنا محل ماركن وما زنتين السلام عليكم ما سنت أحمد هذا كل جدا ياسكا جبريل لما فرحي وما سنت أذينا صومالي ولا لها افتاقنا وجدا وما سنتين دمان ياسكا وسلام يا سودوا ولا شيء السلام عليكم قومي iyo فلسفر waa idin salaamay dhamaantiin inta meesha ku jirta dhanna waa idin salaamaya iska dhageysanayay marka meesha waxa waaye waxa ka qaldan Soomaaliya dhana la sheegaya laakiin war qabiilka iyo 4.5 waxa ka daran aniga personally waxa aaminsanahay Soomaaliya xor ma aha guys maxaa ka hadlaynaa xorba ma nihin we are not maxaa la dhahay wadan madax banaan ma nihin so waagii uu naqabsadeen gumaystaha nimanka la yiraahdo Talyaani iyo Ingiriis ee Soomaaliya gumaysanayeen maxaa la sameeyay gumaysiga la diriray xornimo la qaatay halkaas ka baxay ma heeno hadda sida la eega u baahanahay Soomaaliya in la xoreeyo u baahan Soomaaliya xor ma ahan we are not wadan xor ah oo madax banaan ma nihin halkaas laga bilaabo sheekada waxaan 4.5 iyo maamul goboleed iyo qashin iyo waxaas dhan waana loo keenay anaga ma lahayn waana loo keenay waana lagu xukumaa madaxweyne kasta oo Soomaaliya u imaadana waa la xukumaa waa la maamulaa international beesha caalamka beesha lixaad ee Soomaaliya qabiil kamid ah waay
waxayna raalli ka ahayn lama samayn karo tallaabay ayaga raalli ka ahayn lama qaadi karo so how about if we start there halkaas laga bilaabo because xor ma nihin xor dhanba ma nihinba adiga daada xor ahayn say wax ku qabsan kartaa xorba ma tihid yaaska yaa laga xoroobaa su-aashaas aan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa laga xoroobaa xalane iyo beesha caalamka iyo western world iyo everybody oo foreigner ah oo madax oo macnaha waddanka haysto because soomina arkin safiir walba oo waddan islaameed ka imaaday madaxdeenu way xumeeriyaa qaba hadii dadkaas dhan la shabal gareeyo la dhoo naga baxa amaanna siiya okay su-aasha waxaan ku weydiiyey waxay tahay adii xaas hadduu wax kaa dafo webiga inaad arbaaxdid qiimo badan may kugu samaynay mise xaaska inaa waxaa kasoo dhacsatid waaye of course xaaska inaa kasoo dhacsatid waaye beesha caalamka webigii waaye xaaskana jawaasiista waaye jawaasiista inaad iska celisid miyaa marka mise beesha caalamka inaad iska celisid waaye jawaasiista iyo beesha caalamka dhan because markaad dhahayd beesha caalamka fiiriya anaa kuu sheegaa saa ku kajgaraynaysid jawaasiista qofkii ka hadlo oo dhaho annaga soomaali haddaan nahay annaga ismaamulayno this is our business it's between soomaali dhexdeeda qofkii dhaho oo beesha caalamka dhaho hey stop hana faragelinin qofkii dhaho soomaaliya beesha caalamka xitaa lama hadlayso soomaaliya lagu diraya so those are the jawaasiista haddaa aragtid qof dhahaayo annaga faragelinta hana laga dhaafo soomaali la dagaalaysa haddaa aragtid meeshaas ka bilow soomaaligaas oo qofkan dhahay shisheeyaha naga baxaan la dagaalayo jaajuus waaye because he wants inuu beesha caalamka ula shaqaysto ma fahanti waxaa arkaysaa niman dhan oo madax ah oo maamul goboleedi iyo isku sheegaya state hebel ah madax u ahay ku dhahayaan dowladda federaalka lama hadlayno ilaa ay beesha caalamka meesha fadhido what intaa laga qoraa warkaas adduunyada ilaahay meelay waxaad ka shaqaysa ma jirto oo soomaaliya ka ahayn so therefore dowlad federaal ma jirto marka dowlad federaal ma jirto because maamul goboleedyadii waxay ku qasbaayeen dowladda federaalka inay dhahaan beesha caalamka ay kaalay nikada celi anaga ma heshiinayne hay xaab lagu gaaraaba qabiil waa la isdagaalay waxbaa la maasuqay waxaas dhan waa second number one important anaga noo yaala soomaali haddaan nahay xornimadeena inaan qaadano because xor ma nihin markaad tidhaahdid war waxaan seeg uga xoroonaa waxaa lagu leeyahay waa ina biilaan why do you need a bill fiiri hadda wasaaradaha oo soomaaliya ka shaqa taga waxaa lagu leeyahay intaas oo lacag ay qaataan ilaa la helo nin soomaali oo soomaaliya dowladeeda ugu shaqeeyo volunteer ya soomaali ma hagaagaysa iga qor warkaas because lacagta aragtaa ku baxdo fiiriya bullet proof uu wataa hotel uu degan yahay waxaan ku dhahay stroga wuxuu ugu jiraa smoothie aan caadi ahayn guess what dadkina qarxay ku dhamaanaya why ciyaalkiisana dibadda ku nool yihiin exactly you know madaxweynaha ruushka Putin he is a very smart guy wuxuu dhahay Soomaaliya wuxuu dhahay madaxda Afrika Soomaaliya ma dhihi sorry Afrika dhan uu dhahay Afrikada wuxuu yiri waxay rabaan inay ku dalxiisaan wadamada oo Europe iyo Mareykan iyo North America iyo Canada lacagooda waxay rabaan inay dhigtaan bangiyada adduunka oo Switzerland iyo meelahaas wuxuu dhahay waxay ku soo cibaadaystaan Maka iyo Rome because qaar gaale ay boogtahay Rome ay u tagaan Pope-ka u tagaan ka soo duceystaan kuwa muslimkaana Maka ku soo xajiyaan wax walba oo nolosha raaxa ah dibadda waddankooda dibaddiisa kusoo sameeyay markay dhintaan waxay dhahaan waddankeena hana lagu duugo so therefore Africa waa qabuuro waay waxaa arkaysaa nin walba markuu waayeelo wuxuu ku leeyahay waddankeyga ha liigu duugo meydkeyga ha la qaado oo meydkaaga maxaa marka qabuuraha dhulka loo ciriirinaya miskiinka maxaa lagala doonaya meeshaas waxaagi dhanba banaankaa geysatay hadda u fiirso qof walba wuxuu rabaa dibadda inuu waxbarasho usoo aado qof walba wuxuu rabaa dibadda inuu guri ka dhisto qof walba wuxuu rabaa inuu meel nabad ku noolaado waddankana nabad lama rabo in laga dhigo so meesha ha laga bilaabo waxbay ka horeeyaan Soomaali xor ma ahan hadda u maleynaysiin inaan waddan xor oo madax bannaan aan haysano annaga waxba ma dhaano dawlad Soomaali galbeed oo Itoobiya haysto wax ma dhaano hadda ma la leeyahay dhulkaas waana laga haystaa xor ma ahan annagana sidoo kale ana NFD waana laga qaatay annagana exactly sidoo kale ana ma haysano xor ma nihiin you are not xor beesha caalamka international community ku meeriyo halkaas tag kan qabo saan yeel maamul goboleed hebel saas u sheeg maamul goboleed hebel wuu baxa wuxuu rabo soo saxiixana you know there's nothing you can do about it marka hada u malaysin ina xor tihiin xor ma nihiin yaaska xataa raacso cidda dalka soo gashay cidda ka baxda xataa ayaa ka warhay wax og ma lahan nobody cares qof walba dantiisa u socdaa so ama saan hal iskaga macnaha loo ahaado oo iskaga xatreeyo beesha caalamka loo xatreeyo may ha laga dhaho dadkan amaan hana siiyaan admisaa lagu korqoobiyaa yaaska
ها dadkaas ama waxay ku siinayaan kuwa dhahayo beesha caalamka kursi hoob hebel ana laga qaatay hanoo soo dhiciso iyo beesha caalamka soo dhex gasho weligay ma kaas weligay waxaa ma kuu ark sii raaco markaa beesha caalamka tirahdid ma safiirka suu ula kulmi karaa wasiir hebel wuxuu ku dhahaa waana la biilaa ama wuxuu ku dhahaa chapter 7 aan ku jirnaa so yes labadaas in laga takhaluso waayo kuwa samaya chapter ummadda 7 aan ku soomaalida jirnaa yaa qarax dhahayo ku waa badan dhammaanay yihiin yaa ya qaraxa fiiri yaa qaraxa askariga soomaaliga ee dhaawac ma daawo fiican ma helayo askari aan xabad ridina 1500 u qaata yaa adduunka maskaxdiisa joogtaayoo qaata taas yaa maskaxdiisa normal tahay oo human being taas accept garaynaya waa accept Soomaali askariga Amazonka ee cayilan ee sidoo qudaarteena u cunayay dhargay oo saas TikTok ugu jiro 1500 u qaadana waxba ma wiilka qabto Soomaaliga wax u qabtana male wiilka Soomaaliga dagaalamay frontiga ku jiran war yaa dadka way waalay waxa lagu leeyahay madaxtooyada iyo airportka iyo dekedaha ilaaliyaan uma baahna inay ilaaliyaan ciidankeena Soomaalida way ilaalin karaan because dadkan isku dagaal xataa ma ahan qofka Soomaaliga Soomaali u qori guri waligeeda qabiil loo dagaali jiray shabaab Soomaali waaye ajnabi ma ahan ajnabi ma aha Soomaali waa aragteen oo hadda markii waraalo oo saaxiibay gacanta iga dhaxday maanta waa gacanta wax iga dhacay خلاص بالبراءة وفديه فيري marba هذا هو في رصد جايز وروح عن أول فشل مع المردو دجال شباب مركي فول لسجار ما ضوء عرفت فلويني مذود ما فهمتين جيت مرقاتك دبضوا كجلاء حبضوا لا داعي ما فهمت وح إله أبورت أو أوده أو إلهي مجرتو وارسك علين كرا I believe إن اسك علين كراني أو Soomaali iska celin karto why would you need these adoomada gurigaaga joogaan oo culayska kugu hayaan oo mishaarka kugu qaadanaya how stupid is that so marka waa ka aqli badan yihiin Yasmin no xor ma aha Soomaaliya xor ma ahan maanta laga bilaabo ururka xornimo doonka new SYL u baahannahay simple waa mahadsantihiin ميكائيل hadka ma ku furan mis ana umada ma furneynay laakiin hada furtay waxaan rabaa in ayaaskii dhamaan dadka Soomaaliyeed aan u sheego waxaa jirto dad aan anaga siyaasiyiin u naqaano iyo mucaarad aan u naqaano qaarkood xilal raadis ah qaarkood xilal hayo oo waxa anaga dhan aan ognahay inay dad kale u shaqeeyaan haddii hebel aad tirahdid hebel reer ka soo horeeyo hebel maxaa ka rabtaa hebel ba reerkaaga uu ku leeyahay marka nin kasta reerkaaga naga qabo reer walba Soomaali waxaan ka codsanayaa ninkooda shisheeyaha u kalkaala ama u shaqeeya haddii kale erey adaga isticmaala shisheeyaha jaasuus u ah naga qabo marka si reer kale aysan ku soo farmuuqin adiga qabo dadka midda kale taas maxaan rabay mid aan ka sheego maanta haddaa fiirisiin baarlamaanka Soomaaliya at least 95% baasaboorro shisheeye wataan meel oo Soomaaliya ahayn ama baarlamaanka haddaa fiirisa Ethiopia baarlamaanka Kenya absolutely mamnuuc waa nin baasaboor shisheeye wato inuu wadanka siyaasadda ama baarlamaanka oo soo galo abarteeda ka tahay wadankan hadda aniga joogo Ingiriiska Boris Johnson muxuu haystay dhalasho oo Mareykan haystay oo maxay baasaboor Mareykan haystay marka meero rabin inuu noqdo straight away he surrendered waa dhiibay dhalashadana waa dhiibay muxuu yiri baasaboorkana waa dhiibay kii Ingiriiska haysta so maxaa waaye haddaa adiga shisheeye baasaboorkiisa wadid qasab way faragelin waa lagu imaana waa lagula hadlaa wixii la raba ajandada la raba markii aad fulnay you cannot say no Ahmed mara arinkaas aan xataa space ka furay waxa la yiraahdaa biri hado dagaal dhaco xataa ganacsatada dalka inay maal gashtaan waxa lagu dhahaa biri dagaal dhaco waxaa jira Xamiid Karzai baasaboorka waa celiyay waxaa kaloo celiyay Maxamed Mursi labada baasaboor Mareykan ay lahaayeen dunida ma jirto meel safiiro loo diro ayagoo hadda Kenya waxaa jirta gabar baasaboor Mareykan wadatay Jenny rabtay inay Kenya safiir ugu noqoto waxaa lagu diiday inay baasaboor ajnabi haysato